siday macquul ku tahay nin dilaayo oo qof dilaya isla markaasna dhanka kale YouTube-ka live kaga jira oo boqolaal qof ay ka daawanayaan. waa arrin la yaab leh oo aan la fahmi karin, laakiin ana idin fahansiin doona sidee ku dhacday arrintani. maalintii taariikhdu ay 18 bishii Disembar ee sanadkii 2022 ninkan YouTuberka wuxuu soo galay live dhanka YouTube-ka. live-kaas oo ku ciyaaraya ciyaarta lagu magacaabo GTA Vice City, waxaana daawanayay boqolaal qof oo dadka ku xidhan ah. isla waqtigaas oo ninkani live-ka ku jirayna isla magaalada iyo xaafadda uu deganaa, waxaa jirtay gabadh uur leh oo si xun loogu dhex dilay gurigeeda dhexdiisa. qofka dambigan geystayna waa isla ninkan YouTuberka ee live-ka ku jiray, wuxuuna u adeegsaday meeshan aad hadda iga daawanaysa ee YouTube-ka xujo iyo daliil uga baxsada dambigan uu geystay ee dilka. muuqaalkeena maantana waxaa idinkula wadaagi doonaa sida ayuu ninkaasi ku sameeyay arrintan, inuu live ka soo galay YouTube-ka isla markaasna uu fulinayo dilkan uu geystay. waxaynaan arki doonaa shakhsiyadda ninkan ee la yaabka leh iyo waxyaabaha la yaabka leh uu yidhi intii uu live-kaas waday. ugu horreyn si aad u fahantaan waxa dhacay iyo sida uu ninkani live-ka ugu jiray dhanka kalena uu dilka uga geysanayay, waa inaan idiin sheegaa in live-kan uu ahaa muuqaal hore loo sii duubay. wuxuu sameeyey ninkan inuu duubo muuqaal 6 saacadooda, kadibna uu live ahaan u soo geliyay muuqaalkaas YouTube-ka iyadoo la moodaya inuu live ku jiro hadda. haddaba haddayn intaas la fahanay aan gudaha u galla siday wax u dhaceen. qisada ay maanta ka hadlayna waxay ka dhacday Ireland waqooyi, waxayna ku saabsan tahay ninkan oo lagu magacaabay Stephen Makilla, da'diisuna ay gaadhayso 32 sano. Stephen-kani waa nin YouTuber wuxuuna leeyahay channel uu ku leeyahay dhanka YouTube oo magaciisu yahay Ford Saxon 07. channelkiisana maaha channel weyn, waxaana ku xidhan 35,000 oo qof, laakiin taageerayaashiisu waa qaar aad ugu xidhan oo la socda waxa uu soo dhigo. muuqaalada uu soo dhigaana waxay ku saabsan yihiin inuu review ku sameeyo qiimiska iyo ciyaaraha iyo sidoo kale filimada. ninkan lagu magacaabay Stephen muu soo gelin muddo 1 sano wax live ah, laakiin si kaysa maalintii taariikhdu ahay 18 bishii Disembar ee sanadkii 2022 wuxuu ka furay channelkiisa live uu ku ciyaaraya ciyaarta GTA Vice City. ciyaartana waa ciyaar caan oo laga yaabo intiina badan inaad taqaanaan. si kastaba ahaatee wuxuu ciwaan uga soo dhigay live-kan The Violent Night Christmas Live Gaming Stream, oo macnaheeda ugu dhow noqonaya ciyaaro game oo si live loo ciyaarayo habeen Christmas ah oo cunfi iyo dhib leh. sidaas uuna ku magacaabay live-kiisa habeenkii Christmas-ka ee cunfiga lahaa. live-kaasina wuxuu socday muddo 6 saacadooda, wuxuuna ahaa live aad u dheer. arrin la yaab leh ayuuna ahaa Stephen-kii iska daayay live-afka ee aan soo gelin live muddo. wuu soo laabtay wuxuuna soo galay live muddo 6 saacadooda. laakiin arrinka ka yaabka badani wuxuu dhacay maalintii ku xigtay maalintaas oo ahayd maalintii taariikhdu ay ku beegnay 19 bishii Disembar ee sanadkii 2022. Stephen maalintaas wuxuu soo wacay ciidanka wuxuuna soo wargeliyay inuu helay meydka gabadhii uu jeclaa ee uurka lahayd ee lagu magacaabay Natalie oo uu ka dhex helay iyadoo lagu dhex dilay gurigeeda dhexdiisa. maadaama kiiskani uu yahay kiis cusub oo mar dhoweed dhacayna, kama hayno xogo badan oo gabadhan ku saabsan. macnaha sida la sheegay waxay ahayd gabadhan inay isjeclaayeen Stephen, laakiin lama garanayo xidhiidhkoodu sida uu ahaa. ma wuxuu ahaa xidhiidh ilaa waqti dheer soo jiray mise wuxuu ahaa xidhiidh cusub? ilmaha ay gabadhan caloosha ku wadayna ma wuxuu ahaa ilmihiisa ninkan, mise qof kale ayuu waday ilmaha, mise gabadhan hore ayaa loo qabay oo waa la soo furay? xogtaas oo dhani maaha mid la hayo hadda. waxa kaliya aynu ognahayna waa in isagu uu soo wargeliyay dilka gabadhan ciidanka, wuxuuna sheegay inuu ugu yimi gurigeeda iyadoo dhimatay, kadibna uu soo wacay ciidanka. ciidankii waxay yimaadeen gurigii waxayna ku bilaabeen baadhitaankii. bilowgiina waxay ka shakiyeen ciidanku Stephen, waxayna u kaxeeyeen isagii saldhiggii oo way xidheen. laakiin markii su'aalo la weydiiyey markiiba Stephen wuxuu furay moobilkiisii, wuxuuna soo saaray channelkiisii YouTube-ka, wuxuuna tusay live-kii uu ku jiray isagoo ku yidhi ciidankii eega, anigu shalay marka dilkan la geysanayay waxaan ku jiray live. habeenkii oo dhanna waxaan ciyaarayay game live-ka dhexdiisa oo kamaan bixin guriga. live-kuna wuxuu ahaa live toosa, waa kan wakhtigu ya eega ayuu ku yidhi. sidoo kale wuxuu sheegay in boqolaal qof ay la socdeen live-kiisa oo ay daawanayeen inuu hortooda ku sugan yahay. markana ciidankii way ku qanceen ninkan hadalkiisa. macnaha wuxuu haystaa xujo iyo daliil xooggan oo sheegaya inuu meesha dilku ka dhacay uu ka maqnaa markii uu dilku dhacayay, iyadoo ay jireen wakhtiyo gaagaaban oo nasashaa live-ka dhexdiisana.
dabcan waxaa jiray waqtiyo uu ka yara kacayay live-ka ninkani uu haddana soo laabanayay laakiin haddana waqtigaas uu yara kacayay oo dhan waxay ahaayeen waqti gaaban macquulna ma ahayn inuu waqtiga intaas le ku taga guriga gabadhii la dilay ee Natalie oo uu dilka soo geysta kadibna uu ku soo laabto waqtigaas gaaban sidaa darteed ciidankii way aqbaleen xujadan uu la yimi wayna iska sii daayeen Stephen intaa kadib waxaa lagu sii waday baaritaankii kiiskan muddo bil iyo badh ah oo dambe maalintii taariikhdu ahay 31 bishii January ee sanadkan 2023 ciidankii mar labaad ay soo xidheen Stephen markana waxay ku eedeeyeen ciidankii ninkan in live-ka uu xujada ka dhigtay uu ahaa mid hore loo sii duubay oo live ahaan loo soo geliyay YouTube-ka laakiin haddii live-ku uu ahaa mid hore loo sii duubay sidee dadkii live-ka daawanaya ee daawadayaashiisa ahaa aanay ugu baraarugin arrintaas ilaan qofka streamer-ka ee live-ka soo gala waxa qasab ku ah inuu dadkiisa la socdo waxay u soo qorayaan oo uga jawaabo su'aalahooda si aan u fahanno sababta ay arrinkaas ugu baraarugi waayeen daawadayaashiisu aan isla aragna qaybo yaryar oo ka mid a live-ka uu ninkani soo galay. What are we doing tonight? Well, because this streaming software is kind of up the left, it means I can't check the live chat, which is a real shame. So, by all means, talk amongst yourselves. sida aad maqlayseen wuxuu yidhi ma awoodo inaan eego commentiska oo aan la socdo fariimaha ii soo dirayaan daawadayaashu isagoo ku sabeeya arrintaasna mushkilad ka haysata dhanka live-ka wuxuuna sheegay in haddii uu isku dayo inuu furo qaybaha fariimaha waxa istaagaya oo isxidhaya ciyaarta uu ciyaarayo taasina ahay sababta uu ku sabeeyay inaanu commentiska akhriyi karin oo aanu eegi karin waxay u soo qorayaan daawadayaashiisu dabcan daawadayaashiisu waxay ku fikirayaan haddii aanu kombiyuutarka ka eegi karin commentiska muu soo qabsada telefoonkiisa uu halkaas ka eego commentiyada laakiin Stephen arrinkaasna uu kasii cudur daartay waxyaabo badan oo cudur daara oo kala duwan ayuuna sidoo kale u sii sheegtay arrintaas. I could use my phone to dip in every now and again, but I've decided that I kind of hate live streams where people just sit and read comments and go, "Oh my god, yes, ask me questions, better." xitaa mar wuxuu soo geliyay meesha TikTok wuxuuna yidhi haddii aan telefoonka soo qabsado aan isiraado kala soco commentiyada waxaan ka cabsanayaa inaan galo TikTokna haddaan galo waxay iga dayacaysaa oo iga cunaysaa waqti dheer. And also, if I go on my phone for too long, I'll end up just scrolling through TikTok, and the amount of time that I've lost scrolling through TikTok is unbelievable. So yeah, phones away. Can't look at the live chat for some bloody reason, because if I do, it makes the whole thing freeze and OBS just screws up. But yes, if you have questions, comments, opinions, anything like that, tough. adigu waxyaabo badan ayuu iska laalaa oo islaha cudurdaar ka dhigo maxaa soo geliyay TikTok inuu kala socdo commentiga daawadayaashiisu ay u soo dirayaan moobilka waxyaabahaas ay una cudurdaar ka dhigtay inaanu eegi karin commentiga oo aanu u jawaabi karin daawadayaasha intaa kadib wuxuu bilaabay live-kii sidaan hore idinku soo sheegayna live-ku wuxuu socday muddo 6 saacadood oo xidhiidha inta uu ku guda jiray live-kana wuxuu ahaa markasta mid ku celcelinaya pointigii hore ee ahaa inaanu eegi karin commentiyada oo samaysanaya cudurdaaro kale intaa waxaa sii dheer muuqaalkaas dhexdiisa sidoo kale wuxuu ahaa mid u eeg inuu ku faanayo dilka uu samayn doono macnaha hayloobin live-kani ma aha live caadi ee hore ay u sii duubay muuqaalkan laakiin muuqaalkan dhexdiisa wuxuu samaynayay waxyaabo laga dareemaya inuu dil geysan rabo tusaale ahaan marmarka ka mid a live-ka dhexdiisii sikadiisa wuxuu yidhi magaca gabadha la dili rabo ee Natalie. Yeah, that's physics. That's what would happen in the real world. Absolutely. Absolutely. qofka aan fahmin waxa uu yidhina wuxuu adeegsaday gabadhaas magaceeda sida kaftan oo kale wuxuuna bilaabay inuu ku qoslo kaftankaas uu magaceeda u adeegsaday sidoo kale taasoo kaliya maaha waxyaabaa laga dareemaya inuu isagu dilkan geystay laakiin live-ka dhexdiisii wuxuu bilaabay inuu ku heeso hees la yaab leh heestan uu ku heesayna wuxuu lahaa waxaan doonayaa inaan dilo gabadhan xunta waxaan rabaa inaan ka takhaluso sidoo kale mar kale wuxuu sheegay inaanu doonayn inuu dil ku dhex geysto adduunka caadiga ee uu kaliya ku dhex geysanayo dil caalamka gameka dhexdiisa That's why I like sticking to just doing crimes in a video game.
Keeps things simple, mate. si istaba joogana live-kan dhexdiisa wuxuu ku hadlayay mar kasta hadalla noocaasa wuxuuna ahaa mid ku soo celcelinaya inaanu caawa guriga ka bixi doonin ee uu guriga joogi doono hadalkaas ah inaanu guriga ka bixi dooninna wuxuu ahaa mid uu ku soo celcelinaya marar badan hadalladaasina waxay ka dhigayeen qofka aan xitaa ka shakisanayn inuu ka shakiyo uu isweydiiyo muxuu ninkani ugu soo celcelinayaa hadalkan inta uu iska fogeyn lahaa shakigana isaga ayaaba isku soo jeedinayay dadka I need to kill this bitch. I need to take her down. mid ka mid a waxyaabaha la yaab kale ee sidoo kale ka dhacay live-kan dhexdiisa ayaa ah mid ka mid a nasashooyinkii gaagaabnaa uu soo dhexgeliyey live-kiisa ninkani ayaa wuxuu soo geliyey shaashadii boggan dabcan bogganna waa bogga ay soo dhigaan dadka live-ka soo gala xilliga gaaban ee nasashada waxaana ku qornaa live stream back soon micnaa waqti dhow ayaan soo laabanaynaa oo aan live-ka sii wadaynaa laakiin si kaysa boggaas oo sidaas ugu taagan waxay isbeddeshay shaashadii waxaana soo koray sawirkan oo ah sawirka filimka James Bond ee la soo saaray sanadkii 2021 kaasoo magaciisu yahay No Time to Die markiibana wuu qarsoomay sawirkaasi waxaana soo muuqatay shaashadii sugitaanka waxaana jira masaadirta qaar oo sheegaya in sawirkan uu soo muuqday isla waqtiga la dilay gabadha macnaa ninkan dilaaga wuxuu ku beegay waqtiga uu soo muuqanayo sawirkaasi waqtiga uu dilaya gabadha waqti kadibna markii nasashadii uu dhammaystay Stephen wuxuu ku soo laabtay muuqaalkii wuxuuna ku sameeyay sababta uu sawirkaasi u soo muuqday inay gacantu kaga dhacday mid ka mid ah badhimada ku yaala controllerka ama gacanta geemka wuxuuna sheegay in meeshaas uu taabtay ay soo muujisay sawirka laakiin hadalkaasi wuxuu ahaa iska been dadka live-yada ka shaqeeya ee yaqaanana waxay sheegeen in qofku isagu maamulayo waxa soo galaya shaashadiisa oo aanay macquul ahayn in hal meel uu taabtay uu sawir ku soo boodo taasina waxay tusaysaa inuu isagu ogaan ugu beegay xilligaas sawirkaasina wuxuu ka soo muuqday live-ka 9:26 daqiiqo oo habeenimo ciidankuna waxay ku qiyaaseen inuu dilkani dhacay 9:00 habeenimo mooy sababta uu waxaan u sameynayay uu isku fashilinayay ninkani laakiin waxay u egtahay inuu ninkani ahaa nin kibir badan oo ogaan u sameeyay arrintan sidoo kale mid ka mid ah hadallada uu ka dhex sheegay halkaas ayaa ah markii uu ka hadlayay Christmaska uu yidhi sanadkan Christmasku wuxuu noqon doonaa mid aad u wanaagsan Actually, it'll be a really good Christmas this year. intaasaan idin soo tusay ee ka mid a muuqaalka ninkanna waxay ahayd intii ugu muhiimsanayd muuqaalkaas waana arrin naxdin markaad ogaateen live-kan ama muuqaalkan lasoo duubay ee live-ka laga dhigayay inuu jeedkiisu uu ahaa in lagu daboolo dembi dil ah ninkanna wuxuu u dhigay dilkan uu rabay inuu geysto qorshe isagoo fadhiyay muddo 6 saacadooda si uu u duubo muuqaal live uu ka dhigayo kaliya si uu u sameeyo daliil ah inuu ka maqnaa meesha uu dilku ka dhacay waqtigaas intaa kadibna wuxuu ku soo afxidhay live-kii hadal uu kaga hadlayo jacaylka wuxuuna u sheegayay dadka inay isjeclaadaan oo ay la xidhiidhaan dadka ay jecel yihiin waxaanad moodaysaaba inuu yahay qofka ugu wanaagsan adduunka marka uu soo xidhayo muuqaalkan arrin kale oo la yaab leh ayaa jira oo ah kani waa akoonka uu ku leeyahay ninkan lagu magacaabo Stephen Twitter-ka postiganna wuxuu ku soo sheergareeyay Twitter-kiisa linkiga iyo sawirka live-ka markii uu live-ka soo bilaabayay haddii aad furto dhanka dadka like-ta saaray postiganna oo aad eegto dadka like-ta saaray waxaad helaysaa akoon magaciisu yahay Nat kaasoo laga soo gaabiyey Natalie waxaana akoonka iska lahayd gabadhii Natalie ee la dilay waxayna like saartay linkiga iyo sawirka live-ka lagu dabooli doono dilka iyada loo geysan doono haddaba haddaynu intaas kaga nimaadno muuqaalka aynu nimaadno imikana dilka laftiisa sidaan soo sheegay dilku wuxuu dhacay maalintii taariikhdu ahay 18 bishii Disembar ee sanadkii 2022 maalintii ku xigtay maalintaasi ahay 19 bishana Stephen wuxuu tegay gurigii Natalie wuxuuna soo wacay ciidanka isagoo iska dhigay inuu isagu helay meydkeeda oo la dilay dabcan ciidankii way yimaadeen meeshii waxayna heleen gabadhii oo si xun midi loogu dilay gabadhan lagu magacaabo Natalie waxay jirtay iyaduna 32 sano waxayna ahayd mid uur leh oo maraysa bishii afraad ee uurka ninkan lagu magacaabo Stephen wuxuu dilay iyada iyo ilmaheedii caloosha ku jirayba sidaan hore idinku soo sheegayna ma ka hayno xog badan oo gabadhan ku saabsan sababtoo ah kiiskani weli waa kiis cusub masaadirta qaarna waxay caddeeyeen in Natalie ay isjeclaayeen Stephen laakiin may sheegin ma isaga ayaa dhalay ilmaha mise muu dhalin mana jiraan ilaa hadda sabab la sheegay inay ku riixdeen ninkan dilka
waxaana jira aragtiyo dhowr oo dadku ay ku saweeyeen arrintan oo ah laga yaabaa in gabadhu ay khiyaantay oo ilmahani aanu ilmihiisa ahayn ama laga yaabaa in isagu uu cunuga dhalay laakiin aanu rabin wiilka iyaduna ay diiday inay wiilka iska tuurto sidaasna uu go'aansaday inuu u dilo ama waxaa laga yaabaa in sabab kale oo aan xidhiidh bala lahayn ilmaha ay ku riixday dilka ninkan kuwan aan idiin soo sheegayna waa aragtiya uun welina lama oga sababta dhabta ee dilka ku riixday ninkan markii uu ninkani soo wargeliyey ciidankii dilkan isaga ay ka shakiyeen oo ay soo xidheen bilowgii laakiin sidaan hore idinku soo sheegay markii ay saldhigga geeyeen wuxuu tusay channelkiisii iyo live-kii uu ku jiray weyna iska sii daayeen wuxuuna xor ahaa muddo 1 bil iyo badha muddadaasna wuxuu ahaa mid si joogtaa ugu taga qoyskii dhalay gabadhii dhimatay ee Natalie wuuna la fadhiisan jiray oo uu la sheekaysan jiray isagoo isku dayay inuu sabirsiiyo xitaa wuxuu ka soo qayb geli jiray su'imaadyada ay sameeyaan bulshadu ee ay ugu doodayaan in la raadiyo qofka dilkan u geystay gabadhan Natalie aabbaha iyo hooyada Natalie aqoon sidaas u sii weyn uma lahayn ninkan Stephen way ogaayeen inuu yahay ninka ay gabadhooda isla socdaan laakiin si weyn aqoon uguma lahayn ninkan iyo noloshiisa dilku intaan u dhicin ka horna waxay la kulmeen ninkan 2 mar oo kaliya dabcan gabadhooda Natalie waxay ahayd mid kaligeed nool oo ku nool guri gaar oo iyadu ay leedahay si qoto dheerna waalidkeedu lama socon nolosheeda Stephen lama joogin muddadaas uu ag joogay qoyska gabadhan jacayl uu qabo ee wuxuu ahaa mid basaasaya wuxuuna eegayay inay ka shakisan yihiin isaga mar dambe oo la soo xidhay ninkanna waxaa laga helay telefoonkiisa cod uu ka duubay guriga qoyskan oo uu ku basaasay qoyskan wuxuuna ahaa mid telefoonkiisa dhex dhiga guriga qoyska ay gabadhani ka dhalatay halkaasna u daaya si uu u duubo waxa ka dhex dhacaya guriga wuxuuna rabay inuu telefoonku duubo hadallada ay ku hadlayaan qoyskani si uu ogaado inay ka shakisan yihiin ama ay hadal hayaan isaga waxyaabaha la yaab kale uu ninkani sameeyeyna waxaa ka mid ah Stephen wuxuu soo dhigay muuqaal YouTube-kiisa maalintii taariikhdu ahayd 19 bishii Disembar oo ahayd maalintii uu soo wargeliyey dilka ciidanka muuqaalkuna wuxuu ahaa muuqaal caadi ah oo review ku sameynaya ciyaar lamana oga waxa uga jeeday ninkani muuqaalkaas ma wuxuu rabay inuu isu muujiyo inuu noloshiisa sii wato macnaha xitaa haddii uu islahaa dadka tus inaanad adigu ahayn dilaaga wuxuu ku soo beegay isla maalintii laga rabay inuu murugoodo ilaan gabadhii uu jeclaa ayaa dhimatay hadda intaa kadib maalintii taariikhdu ahayd 31 bishii Disembar ee sanadkii 2022 wuxuu soo faafiyey ninkani bostigan oo uu ku soo qoray 2022 wuxuu ahaa sanadkii ugu xumaa noloshayda ma garan kartaan xaddiga khasaarada iyo dhibta aan la kulmay maan jeclaadeen xitaa in waxaas oo kale ay ku dhacaan cadowgayga aan ugu nacabahay ma wanaagsani mana u malaynaya inaan weligay ku soo laaban doono sidaan ahaa markii hore waxaan khasaaray wax badan laakiin weli waan joogaa maalintii taariikhdu ahayd 25 bishii January ee sanadkan 2023 wuxuu soo faafiyey ninkani muuqaalkiisii ugu dambeeyay sababtoo waa la soo xidhay intaa kadib waxaana la soo xidhay maalintii taariikhdu ahayd 31 bishii January ciidankuna waxay u soo xidheen Stephen sababtoo waxay heleen cadeymo ay ka heleen kamerooyinka waxayna heleen muuqaalo cadeynaya in ninkan uu ka soo baxay habeenkaas gurigiisa oo uu raacay bas kadibna uu aaday meesha ay deganeed gabadhii Natalie intaa kadibna uu soo qaatay taxi oo gurigiisa ku yimi dhaqdhaqaaqadiisaas oo dhanna waxaa laga helay kamerooyinka ciidankiina waxay u baahdeen inay baadhaan kamerooyin badan oo ku yaalay wadooyinka si ay u daba raacaan dhaqdhaqaaqyada ninkan oo dhan intaa kadib xitaa waxay heleen baskii uu raacay iyo tagsigii uu markii dambe soo raacay markii la tusay live-kii uu xujada ka dhiganayay dad aqoon u leh arrintanna waxay caddeeyeen in muuqaalkan uu yahay muuqaal hore loo sii duubay oo aanu ahayn live intaa kadib maxkamadda dhexdeedii Stephen laftiisii ayaa xitaa qirtay in muuqaalkan uu yahay muuqaal uu hore u sii duubay laakiin muu qaran inuu isagu geystay dilka wuxuuna yidhi anigu waxaan joogay guriga habeenkaas oo dhan iyadoo dhammaan kamerooyinka iyo cadeymaha ay ciidanku hayaan ay tusayaan cagsiga midaas ilaa haddana kiiskani weli waa mid socda welina laguma sugin ninkan eedaynta lagumana xukumin xukunkiisa ugu dambeeya mana ogaan karna waxa uu noqon doono xukunkiisu ninkan laakiin arrinka la yaab kale wuxuu yahay Ireland dhexdeeda xukunka xabsi daayinka ee ugu dheer waa 25 sannadood oo xabsiya weliba dambiiluhuna wuu ka soo bixi karaa 20 sano marka uu ku jiro xabsiga haddii uu dhaqan wanaagsan ku dhaqmaynta uu ku jiro xabsiga waxaa jira kiis midkan u eg oo ka dhacay dalka Ireland sanadkii 1998 ninkan ayaa wuxuu si xun u dilay saaxiibtii iyadoo weliba uur u leh waxaana lagu xukumay xabsi 25 sannadood ah
waliba xabsigaas muu dhammaysan waana la iska soo daayay sanadkii 2017 iyadoo lagu sii daayay dhaqan wanaag. sidaa darteed ninkan xukunkiisu isna wuxuu noqon doonaa un midkaas la mid ah, lagumana xukumi doono xabsi daayin ama dil. intaasi uuna ku eegyahay daawadayaal muuqaalkeena maanta. ha iloobin hadduu ku qanciyey muuqaalku inaad like saarto, subscribe-na saar haddii aad ku cusub tahay channelkeena Ogaal Cusub. waad mahadsan tahay.